toddobiyo May 1988 waa dharaartii dib u xoreynta ururka SNM ay ku sameeyeen deegaanada Somaliland. Axmed mire Maxamedna waxa uu ahaa halgamayaashii soo galay magaalada Burco waqtigaasi. Maanta ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Burco, waxaana soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo sacabada u tumaya oo leh mujaahid soo dhawow. waxaana hadaladii mas'uuliyiintii soo dhaweeyay kamid ahaa soo dhaweynayno Mujaahid Axmed mire Maxamed oo qarankan kula calaamad gaar ah aad bay farxad noogu tahay. Mujaahid Axmed mire ku soo dhawow gobolkaagii, raggana waa raggii ku dhashay dareenkaagii iyo mujaahidnimadaadii iyo awooddaadii koob intaasoo nin oo halkaa taagan waa min 20 jir ama waa min 30 jir may jirin maalintii ay kugu dhalatay inaad heriyada gumaysiga ka dulqaado. ilaahay baan ugu mahad celinaa inaad maanta nagu soo noqotay adigoo caafimaad qaba. waxaannu kugu bishaaraynaynaa ujeeddadii iyo qarannimadii iyo horumarkii aad lahayd maanta reer Somaliland inay halkii aad ku hamiyeysay marayso. waxaannu u baahannahay fikirkaaga, waxaannu u baahannahay taladaada, waxaannu u baahannahay caqligaaga iyo manfacaaga wixii maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu simay. nin waliba maalin buu lahaa, ninkii lahaa 8 May hogaaminaya ciidamada SNM ee ka dhex toosay magaalada Burco ayaan maanta halkan ku soo dhaweynayaa. ku soo dhawow mujaahid. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Axmed mire Maxamed Nuux oo halkaas uga mahadnaqay dadkii ku soo dhaweynayay, waxaana hadaladiisii kamid ahaa maanta halkan lagu soo dhaweeyo oo ah gobolkii Togdheer oo aan hore u oran karo waa xuduntii dalka. waxa weeyaan halkan waa halkii la tilmaamayo ka dhacay. waxaan leeyahay ku soo dhawaada. waxa weeyaan dadkaygii baan u imid, dalkaygii baan imi. waan idinla joogaya haddii alla idmo. wax liya wixii dee tamaraya waxaynu isku biirin karana waa ka wada tashan doonaa. waxaan tala ahayn oo caqli ahayn ku socon mayno haddii alla idmo. wax walba in laga tashadaa, waa in caqliga la isku biiriyaa, waa in la istoosiyaa, waa in la istabantaabiyaa. Maxamed Siciid Gaxnug, telefishinka caalamiga ee Badda Cas, magaalada Burco.